السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيادة شرفت لي مالك سجوكتان كسو هذا فيديو جن مانتا ودين سو دياري أنا جوا علي محمد اسمه علي باشي. إن شاء الله فيديو جن مانتا وجواب دون سؤال نسوي دي صاحب كان ولكن إسماعيل خليف إسماعيل وما صنتهاي سؤال وسؤال مهمة سؤال شيء سنو حين الله ذا هاي سيدين وسوق لين كرنا بيج نمبر مركز الاستعمال مايكروسوفت وورد. إن شاء الله وحسكو ديدونا إن سؤال شان سكوبن وجوابنا إلا دماتك فيديو عند سي جوكتنا وحاسو قادنا وحيابا كلا أو ديريا أو إسلا سؤاشان ماركتي قصية وحرجينا إنا كفايدة سندونتان إذن كان هذا هايسان سؤال كلا أو كسابسن سيدا السوشيال ميديا لو استعماله تسألان فيسبوك يوتيوب انستغرام سناب شات وحيابا أصلا هذا سؤال كقبتان سيدا لو استعماله أما أو شك إني كجرو نسوي دي وحاسو ديدونا إنا فيديو كسوسو منو سيدا وكل هذه أربتان سيدا مايكروسوفت برنامج أوفيس هذه متكملة أربطة إنه وحكي وقتان أما أدوب برنامج هذا أربطة إنه وحكي برتان سيدوك اللي نسوي دي مركز القناة كان وحكي سوق هذا الناس سؤالان نسوي دي سان برنامج كله آدي أدوقيم بدن كهر أنت أنا فيديو جنا ما أنت جود قلنا هذه أكو عصب تاع القناة كان وحاجة على إن نقول تاجرته سبسكرايب كا لايك شير دينعين وفري لكن دينعين وحكيتها هاي دير قلنا سأصل ديارنا برنامج كله آدي أدوقيم بدن أوكي si aan ugu jawaabno su'aashana maanta marka hore waa inaan furnaa barnaamijka ee qoseyso kaasoo ah Word. Microsoft Word ayaa isticmaalaya kii ugu dambeeyay 2021 haddii aad isticmaalaysid mid hore wax badan ma ku kala duwana oo inta badan waa isaga mid gaar ahaan marka la soo gelinayo page numbering waxaan isku dayi doonaa inaan qaabab kala duwan u soo gelino saddex nooc oo kala duwan ayaa isku dayi doonaa inaan soo gelino midkii kuu sahlan markaas adiga ogsoon. Okay kahor intaan ka jawaabin su'aasheena maanta marka hore waa muhiim inaan fahamno farqiga u dhaxeeya Word, PowerPoint iyo Excel. Word wuxuu isticmaalaa pages, PowerPoint wuxuu isticmaalaa slides, Excel wuxuu isticmaalaa sheets. hadda markasta aad rabto inaad wax soo geliso wax cusub markaa soo gelinayso sida inaad soo geliso sawir inaad soo geliso page number inaad soo geliso markin icons shapes waxaas oo markaa soo gelinayso waxaad tagaysaa insert tab ayaad tagaysaa insert tab markaa tagto waxaa kuu soo furmaya kadib ribbon system kaas qaybta midig waxaa ka aragnaa page number badhankaas ayaa ku shaqo leh page number dhinaciisa midig waxaa ka aragnaa falaar yar oo hoos u jeeda markaa furto click markaa right click ku siiso farta midig saddex badhan kale ayaa soo bixayso kan ugu horeeya waa page number kuwan kale usoo laaban doonaa page number markaa click ku siiso qaanadan ayaa lagu soo furayaa position ayaa ugu horeyso xagee ka rabtaa qaybta sarmeeya ka rabtaa mise qaybta hoose inuu numberka lagu qoro bottom haddaa rabto hoos haddaa qaybta sare inaa numberka lagu saaro rabto kor ayaa saaranaysaa hadda waxaa rabnaa bottom hoos in nala dhigo qaybtaas dhinaca hoosena waa ka aragtaa oo preview yaris ayaa lagu siiyey sida warqadda u agtaa ama pageka sida u egyahay iyo qaybta lagu dhigi lahaa. Okay alignment waxay ku shaqo leedahay meesha oo numberkaas joogi doono haddii aad dhexda ka rabto midig iyo bidix meeshaas ayaa ka dooranaysaa hadda right ayuu noo joogaa haddii aad tago center u fiirso numberka wuxuu imaada center left haddii aad dhaho outside beejyaasha qaybtooda banaanka laba beej oo iska soo horjeeda haddii ay tahay sida buug oo kale dhinacyada banaanka oo hoosa lagu dhigaa markaas. Okay haddii aad dhaho markaas right inta badan right lagu dhigaa ama center dooq adigaas kale right ku dhig ama aad doorana right u fiirso show number on the first page markaa samaynaysid beejyaal badan waxaa lagu weydiinayaa badhanka haddii aad calaamadeeyo pageka u horeeyo number in lagu siiyo ma u baahan tahay haddii aad rabto in lagu siiyo yaa adhaysaa haddii aad rabin waa ka bixinaysaa hadda u fiirso laba page ayaa haystaa show number on the first page ma dooranin kadib waxaa tagayaa okay pageka markaa tago qaybtiisa u hooseyso wax number dhamma lahan pageka xiga markaa tago number ayaa la siiyey labo ka bilowda. Okay haddaa isla meeshii ku laabto page number haddii aad doorto show number first page number waa la siiyey kow. Okay haddii aad isku dayo inaa maaragtay viewga aan noo soo koobo labada page ba isku dhinac keeno waxaa teginaa multiple pages fiirso kow iyo labo. Alright haddii aad ku laabano insert page number marka waxaa teginaa format ayaa teginaa page numberka waxaa kasii gudagelinaa formatkaas qayb kaloo laga taga way jirtaa format markaa fiirso sidee u egtaa u fiirso hadda cancel laga dheh formatka waxaa kaloo ku shaqo leh qaybtaas format page number intana waa kasoo gali karnaa waa isku mid ayayna keenaysaa
haddii aad rabto page numberkaaga in uu kaaga bilowdo number kale haddii ay dokumentiyaal hore u qornaa oo report a qoraysay oo 10 baal ama 100 baal ama waxay ahaadaan ha maraan meesha haddii aad rabto in meel lagaaga bilaabo tusaale ahaan start at adhigi karaa 10 ka bilaabo sababtoo 9 kala soo qoray oo hore loo soo daabacay qaybta dhiman ayaa kusoo dar rabaa hadhow si laiskugu daro laakiin haddii aad rabin waxaad samayn kartaa continue from previous section dokumentigii hore u qornaa ayuu kusii dabadari karaa markaas nambaro cusub oo meesha ayuu kusoo darayaa qaybta u horeyso number format waxaa rabtaa tirooyinka 1 2 3 4 miyaa rabtaa mise waxaa rabtaa Roman number ABCD miyaa rabtaa sidaa rabta ayaa dooranaya chapter pageka chapterka haddii aad rabto xitaa number waa lagu xisaabin karaa inta badan bugaagta oo la daabaco page numberka ma aragtay chapter numberka xitaa chapter number waa la siiyaa chapterada chapter 1 pagekiisa number waa la siiyaa laakiin inta badan ma laga muujiyo okay hadda waxaa sameynay number ayaa soo gelinay qaybta hoose midig ayaa dhiganay okay haddii aad rabo marka inaa ka bixiyo waxaa tagaya isla buttonkii remove numbers ayaa tagaya remove way naga bixin wax number ma noogu jiro si kale usoo gelin karaa kuu sheegaa marka u fiirso qaybtan waxaa ujeednaa header iyo footer waxaa laga wadaa pageka qaybtiisa u sarreysa waa header qaybta u hooseysana waa footer sida qofka biniaadanka oo kale header waa madax head madax waaye footerna waa lugta sidaasoo kale ayay ugu magac bixiyeen markii magac bixinta loo sameynayay baramadan header markaa tago haddii aad rabto dokumentigaada in oo qaybta sare nambarada laga soo saaro meeshaad ay ka dooran kartaa header markii aad furto waxaa kuusoo muuqanaya qaybo badan oo headerka ah midkaa rabta ayaa dooranaysaa oo waa naqshado badan hore loo soo diyaariyey u fiirso qaybaha hoos marka imaano number ayaa la siiyey okay numberga waa la siiyey haddii aad rabo midkaas ayaa dooran karaa u fiirso number headerka ayaa lagu soo dara headerkana waa qayb maaragtay oo documentiga automatic ugu soo daraya dokumentiyada inta waxaa ku qorto headerka haddii aad 100 baal ama 1000 baal aad qorto headerka hal meel hadda kaga qorto inta way ku wada qormayaan okay hadda headerka naqshadaas ayaa la siiyey haddii aad rabo inaad ka laabto waxaa tagaya close okay close wuu naga xire oo nambaradii waa haysnaa haddana waxaan ku laabanayna insert header markaa ku laabano haddii aad rabo inaad ka saaro headerkii aad soo geliyey oo nambarada ahaa qaybtaas oo ayaa tagaya qaybtaas hoose remove header way naga bixin si kale loo soo geliyo way jirtaa oo qayb saddexaad waxaa tagaynaa footer qaybta hoose u fiirso qaybo badan oo naqshado badan hore loo soo diyaariyaa meeshan ku jiro midkaa rabta ayaa ka dooranaysaa markaas hore ayaa u soconaysaa okay author and name midkaas taa doorato u fiirso waxaa la siiyey author qofka maaragtay markaas documentiga qoraya iyo page number ayaa la siiyey haddii aad zoom in ku dhaho fiirso Ali Cusman waa magacayga anaa ku log in ku hadda marka softwarekan page number ayaa la siiyey qaybta xigta sidoo kale page 2 okay u fiirso meeshan haddii aad rabo inaad wax ka bedelo waxaa samayn karaa numberka waa tiri karaa markaad doorto wax kale waa ku qori karaa laakiin hadda u baahni haddii aad rabo field waa soo gelin karaa field waa qayb kale oo ayadana muhiim ah sida maaragtay Ali Cusman waa field number waa field waxay tahay hadda ayaa ku tusi doonaa field markaad doorto u fiirso waxaad tegi kartaa waxaa rabta ay dooranaysaa author haddaad taabto waa magacayga author qofka qoray ayaa markaas lagu qorayaa u fiirso meeshii markaas ii joogta ayaa lagu daba qoray hadda ma u baahnin command Z ayaa taabanaya ama options Z haddii aad isticmaalaysid Microsoft maaragtay Office haddaad isticmaalaysid Windows haddii aad rabo inaad ka saaro markaan waxaa tagaya close waxaa ku laba insert footer remove taasna ugu saar mar kale haddii aad rabo field wuxuu shaqadii oo qabtay ayaa markaan ku tusi doonaa waxaa dooranaa blank oo 3 columns ayaa doortay blank 3 columns waxaa rabta ayaa gelin kartaa waxaa gelin kartaa taariikhda la qoray magaca qofka qoray iyo page number okay qaybta horeysa ayaa dooranaya markaad doorto laba mar klik ku siinaya kadib waxaa tagaa field okay intana waa ka dooran karaa laakiin field markaa tagno markaan waxaa dooranaynaa author qofka soo qoray meeshaas iyu geli okay magaciigaa geli qaybta labaada imaanaya waxaa tagaya field waxaa tagaya markaas
waxaa ka raadinaya date and time waqtiga la qoray date ayaa gelinaya okay dateka la qoray waa maanta 2 bisha 6 okay markaa calaamadi kadib waxaa tagaa field kadib waxaa dooranaya all markaa tago qaybtan p haddaa gaarto qaybta p page wakaas waa ujeedaa page abcd ahaan ayaa loo kala hormariyey okay markaa taabto number waa la siiyey oo fiirso documentigii magaciga ayaa la siiyey taariikhda la qoray iyo page numbering okay videogan maanta aan kusoo qaadanay sida loo soo geliyo page numbering wuuna soo weydiiyey walaalkeen Ismaaciil Khaliif intaas ayaa kusoo koobina insha Allah waxaa rajaynaa inaad fahamteen haddii aad wixii talo iyo su'aal soo jeedin aad qabtaan markasta commentiga hoos inoogu soo qora haddii aad rabtaan koorsadan oo dhammaystiran Microsoft Word oo dhammaystiran waa idin sameeyey haddii aad rabto inaad barato sida loo isticmaalo A to Z kow ilaa ya haddaad rabto A ilaa ya linkigiisa waxaa soo dhigi doonaa qaybta sare ama waxaa tagtaa www.kabaro.com haddii aad rabto Word Excel PowerPoint waxaa soo dhan waa ayagoo dhammaystiran ayaa meesha ka heli kartaa haddii ilaahay rabo waana mahadsantihiin sida hore idin kugu sheegay haddii aad qabtaan su'aalo kale markastana soo weydiiyey waxaa isku dayi doonaa inaan video kasoo sameyno waxaana inoo balan insha allahu video kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu